السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحل الدنبا واye waa saddexda habeenimo update waa muhiim weey. waxaan usoo jeednaa waxa weey dadkan aan wax kasta oo dhaca daqiiqad walba inaan usoo gudbino dhamaantiin waa maasantiin waa channelka naga daawanayso ay qabli official channelka kan subscribe saaro gambaleelka furo si aad update kasta wax walba oo dhaca si kan walba ula socotid degdeg maxamed amiin baaba shaku baa hadda dhaawac degdeg gaaray ma naqaan qolada gaarsiisay laakiin aan isla daawano haye أصحاب قالقة وحيد الله الله ونزان ودا وعنو محمامي يحيى أصحابي وحاي أركل يدلي وحواي ما دام أن عدالتي حقها كالي أو أنا كالي رد جرتو شرب بوي إذا درج لوجيستي وحاد عضي ما بركة ساعات بريسي هلك ساعة مينيمو وحي صوّع عند اليرو haye اليرو كوباين سديد قف haye وحي يرادين ولا شكبابا كو قار أنا قون ولا يعي haye waxay yiraahdeen biyaa la hadlayna shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar bustii aqoona waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kulaado ana oo kulkulba ana kulaado kala hadla arrinka sharbu boy iyo waxyaabo ku saabsan haye waxaa yiri brother diyaar waay waxuu kaba qabi haye waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago waa gartay markaan u tago inay gaari i gashtaan haye yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna ee wata haye waxay anigoo baabuurka ku sii jiro haye waxaa liigu kor waxay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid haye Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku imaanayna haye anigu waxaa siri haddii aad gabatid ama haddii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah haye ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn haye because Axmed Rashiid wuxuu hawshiisa ay tahay inuu dilo ragga tuugada ah صح ragga wax dhaco waa sax ragga toorada wato waa iyo sax ragga biskoolada wato waa sax aniga intaasi kama saabsani mana ku jiri haye waxaa la ii soo sidaad arkaysaan wiilkan dhaawac degdeg ah baa soo gaaray dhaawac degdeg ah baa soo gaaray caawo ayaana lagu dilay Nairobi waa la garaac asaga dhan afkiisa iyo wajigiisa waxa ka muuqdo dhaawac aad u daran anigu ma cadeey karo qolada dishay iyo dhibkan qofka u geystay laakiin wuxuu magac meesha ku xusayaa yar dhalinyaro ah Rashiid laho meesha ku xusayaa muuqaalkan ayaa hadda baraha bulshada soo galay oo hadda naloo soo diray ummadana waxaan rabnaa inaan usoo gudbino oo aan la soo wadaagno wiilkan dhalinyaraha magaciisa waxa la yidhaha Baba Bashu Shukubaba Shukubaba soo maahayn Shukubaba la yidhaha waa wiil dhalinyaro ah weeye barnaamijyo qurux badan qaba jiray barnaamijyadiis fani iyo waxbay ahayn xalira Soomaali Reena waxbuu qaba jiray barnaamijyo ah aad iyo aad marka arintan hadda waxay ka dhacday isli hadda ayaan la soo wadaagay saacadan anaga aan la hadlayna waxa weeye waa 3 iyo 4 oo habeenimo waaye walow saacada waqtiga meesha ku sheegayo muuqaalkan laakiin hadda ayuu baraha bulshada soo galay waxaanu leenahay qof kasta oo noqoto oo nabarkan ama dhibkan ku geystay waxaanu leenahay sheeg maxaa lahaa ilaahay kaaga boogdayo oo caafimaad degdeg ah ku siiyo walaalkay waana ka xunnahay waxa ku soo gaaray waxaan rabnaa in aan mataqaanaa asla sii dhageysano waxa wiilka dhalinyarada soo gaaray asaga ayaa noo sii sharaxaya bal haye Shukubabo waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi haye dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Alxayaat haye dhalinyartii waxay bilaabeen in haraanti la Jam Street Alxayaat Abu Sar haye uu qabto kamid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday haye oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay haye kadib waa la iskiigu kaytay tooriyaa la soo baxay toorey aha subxaanaka ya cadim haye toori markii la soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay haye waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacan badan la igu sameeynaayo waxaan bilaabay inaan wax dakana ma qabiyo ninkan dhalinyaro ma qaano asbaabta keeni kartin dhalinyaro guri ugu imaadaan ee iska raaco kulay shan qiyaasayo dakana oo isku ogaa ninkan dhalinyarada ah ma jirto shan qiyaasayo because doo dakana isku ogaa ma raaceen dhalinyaradan xilliga dambe oo timid walow uu sheegayo dhalinyarada inuu yaqaanaba magacyadooda waxa taa sheegay haye ka dhaciyo sideedii degdiriba waxay tiri brother waa dhibatay inta la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo si fiican gacan ayaan u qaaday gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badna shanin maal iska xidhi kara shanin cabsi waay haye waxaa noqday geesi garab waayay oo mataqaanaayo meel iska saari waayay kadib
waxaa dhacday in oo mataqaanaa baabuur gistaan aad baan uga xumaha wallahi xanuun baan dareemayaa walaalkay waa ka xumaha wixii kusoo gaaray ilaahay caafimaad degdega ha ku siiyo insha allahu tacaala take care markay gistaan ayagoo hanjabaad iyo wax walba wadaa haye irbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yidhahda cadaan model iyo inta majeerteelaaba dhan ha waxaa balal nagu ah inaa meel saaro haye oona magaalkiisa nabad ku noolaanin waa garta waxay yidhahdeen adigoo la majeerteenahayn waxaad majeerteen oo daba dhaqlaynaysid ha waxaad tahay dabadhil majeerteen haye majeerteen waxay ahaayeen dad awowayaasheena xirxiray haye dad awowayaasheena gumaaday haye gacqaad fara badan bismi illaahi raxmaan raxiim sheekadu waaba sheeko iga waaweynba haye dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena haye way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka xabarshiid ahaa haye markii xabarshiid la ii geeyey inta xabarshiid la ii geeyey ka hor baabuurka inta igu wadeen hanjabaad badan ay igu wadeen haye waxay yidhahdeen waxaa next ah oo kugu xijinaynaa ninka la yidhahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen haye marka waxaa dhacday aad baan uga xumaha walaalkay wax kusoo gaaray ma sii wadi karo ma sii dhegeysan karo muuqaalko aad baa umahadsantihiin waa walaalka royal family intaan barnaamijka wuxuu kulmi doona waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi